bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawa doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore ee hirshabeelle oo ka hadlay xaalada ka jirta deegaanada maamulka hirshabeelle iyo doorashada ka socota halkaasi ciidamka haramcad oo muqdisho ku dilay haweeney dad kalena ku dhaawacay sheekh shariif sheekh axmed oo qaaday tallaabo lagu ogaanayo awoodiisa doorashada maxay ahayd shahaadada xubnaha lagu siiyey gudaha filla Soomaaliya wararka ugu dambeeyay xaaladaha kala duwan ee dalka uu ku jiro ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doonaa haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo sheerka iyo commentiga noogu dadaal aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya maxamed cabdi waare madaxweynihii hore ee hirshabeelle ayaa ka hadlay xaaladaha adag ee haatan ka jira qeybo ka mid ah deegaanadaasi madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ka digay in la dilo musharaxiinta ergada kursiga tirsigiisu yahay hoob 58 oo deegaan doorashadiisa tahay beledweyne waxaana uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan ka jirta beledweyne ay tahay mid lagu doonayo in lagu qaarijiyo shakhsiyaad fara badan sida uu sheegay madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u mucaarado kooxda madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu hadalkani ku sheegay in dhibaato fara badan ay dhalan karto hadalka waare ayaa kusoo aadaya xilli guddiga doorashooyinka maamulka hirshabeelle ay dib u dhigeen doorashada kursiga tirsigiisu uu yahay hob eber 68 sababa aan la shaacin kursigani ayaana tartan adag waxa uu ka dhexeeyaa musharaxiinta kale ah madaxweynihii hore ee hirshabeelle cali cusuble iyo agaasimihii hore ee nisa cabdulaahi sambalooshe taageerayaasha madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa si weyn wax waliba ula socda xaaladaha adag ee haatan doorashada ka jirta ayaana u muuqanaysa mid saameyn fara badan ku yeelanaysa qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada maamulkaasi madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle ayaa sidoo kale ka digay dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee mararka qaarkood dalka ka dhacaya isagoona ku eedeeyay kooxda madaxweyne farmaajo in ay ka gudbeyso sharciga sida uu sheegay madaxweynihii hore ee maamulkaasi maxamed cabdi waare oo ka mid ah shakhsiyaadka sida weyn u dhaliila kooxda madaxweyne farmaajo ayaa hore waxa uu sheegay in ay dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee mararka qaarkood jira ay noqon karaan kuwa saameyn badan ku yeelan kara dhanka kalena maxay ahaayeen shahaadooyinkii filla Soomaaliya lagu siiyey qaar ka mid ah shakhsiyaad fara badan agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi ciise maxamed dheere ayaa madaxtooyada qaranka ka furay shir looga hadlayo dadajinta qorshaha howlwadeenada madaxtooyada qaranka ayaana bogaadiyay howlaha hortabinta leh ee shaqaalaha madaxtooyada ay qabteen 3 bilood ee lasoo dhaafay agaasimaha guud ee madaxtooyada ayaa dhammaanba waaxyaha madaxtooyada faray in ay mar walba ay soo gudbiyaan qorshe howleedkooda 3 bilood si waafaqsan qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka hiigsiga madaxtooyada kulankani ayaa waxaa lagu soo bandhigay qorshaha 3 bilood ee lasoo dhaafay iyo hirgelinta waxyaabaha madaxtooyada qaranka caqabadaha ka hor yimaada iyo fursadaha lagu sixi karo sidoo kalena waxa uu dhammaanba waxyaabaha kala duwan uu ka hadlay ka mid ahaa in si weyn loo taageero madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo agaasimaha guud ee madaxtooyada mudane maxamed cabdulaahi ciise ayaa dhammaanba howlwadeenada kula dardaarmay dardargelinta shaqada iyo sidoo kale in ay mar walba ay taageeraan madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo agaasimahan ayaana ka mid ah shakhsiyaadka la sheegayo inay si weyn ugu shaqeeyaan maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dhanka kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa soo bandhigay qorshayaal waaweyn oo ku doonayo inuu ku tijaabiyo awoodiisa doorashada hogaamiyaha xisbiga himilo qaran sheekh shariif sheekh axmed oo ka mid ah xubnaha ugu cadcad xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo uu ku ogaanayo culeyskiisa doorashada madaxweynaha iyo codadka uu heli karo sheekh shariif sheekh axmed waxa uu noqday musharaxa koowaad ee miiska keena in uu wato musharaxa uu rabo xilka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xilli xubnaha kale ee midowga musharaxiinta ay ka dhuumanayaan in ay qof gooni ah ay taageeraan iyadoona aaminsan yihiin in taasi codadka
ay ku lumi karaan, balse Shariif iyo kooxdiisa ayaana cabsanin isla markaana qaba in ay awoodooda ay tijaabin karaan. Qofka uu Shariif miiska keensaday ayaa ah Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo horey u soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Sida ay sheegayaan kooxdan, saddex faa'iido ayay uga dhex jeedaan in ay tijaabiyaan awoodooda. Tijaabada koowaad, Shariif Sheekh Axmed iyo kooxdiisa waxay rabaan inay tijaabiyaan awoodooda doorashada iyo in loolanka gudoonka baarlamaanka ay ku adkaadaan, waxayna ugu muhiimsan tahay in ay mar kale tijaabo rasmi ah ay geli karaan. Haddii Sheekh Shariif Aadan Madoobe uu meel hoose ka galo doorashada golaha shacabka, waxay fariin kale oo adag ay la kulmi doona Shariif Sheekh Axmed, iyadoona uu doonayo in uu saxo meelaha uu ka liito. Laba, xubinta baarlamaanka ee haatan la sheegayo Sheekh Aadan Madoobe uu haatan uu noqon karo in saameyn badan uu ku yeelan karo. Xubno badan oo kusoo baxay doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa durba waxay ballan la dhexmarayaan musharaxiinta. Ballanta waa inay codka siin doonaan xildhibaanada qaarkood. Waxaa laga yaabaa in ay ballankaasi ka ahaa hadal ay ku qaadaan soorida siyaasadeed, laakiinse markii Shariif uu sharaxay Sheekh Aadan Madoobe waxay u ekaanaysaa in uu xildhibaanada uu doonayay in uu banaanka uu soo istaajiyo ballamada ay la galeen, haddii ay ka baxayaan iyo haddii ay ka dhuumanayaan. Hadalhaynta lacag yarida haysato Shariif Sheekh Axmed. Shariif Sheekh Axmed waxa uu doorashadii hore ee Soomaaliya la sheegay inuu dhaqaale ahaan uu dhaqaaqi waayey in uu sanadkan uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya, balse tababare Shariif Sheekh Axmed ayaa go-aankiisa ugu weyn waxa uu yahay in uu mar kale ololihiisa kor u qaado xilli taageero uu ka helayo dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowlado kale. Shariif Sheekh Axmed oo ka mid ah shakhsiyaadka sanadkan loo saadaalinayo kooxda Villa Soomaaliya la sheegay inay si hoosaad ah xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo. Tanina waa caqabadaha ugu adag ee haatan jira. Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa ah laba koox oo si weyn u kala fog. Haddana wararka ayaa waxay tilmaamayaan in kooxda midowga musharaxiinta ay culays xoogan ay ku noqonayso guusha Shariif Sheekh Axmed. Dhanka kalena, daawadayaal, ciidamo ka tirsan kuwa Haramcad ayaa qof haweeney ah waxay ku dileen gudaha magaalada Muqdisho, kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa Haramcadka ah ee ka howlgala xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa waxaa la tilmaamay in ay rasaas si bareer ah ay ugu dhufteen haweeney, iyadoo wararku ay tilmaamayaan in ay haweeneydan ay kasoo horjeeday howlo sharci darro ah ay ka sameynayeen ciidamadani ka tirsan Haramcad xaafado ka mid ah degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dilka haweeneydan oo shax ku iibinaysay isgoyska Sanca ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegay inay si bareer ah ay u toogteen ciidamadani ka tirsan kuwa Haramcad. Wararka ayaa waxay tilmaamayaan inay kasoo horjeeday isla markaana si weyn ay u dhaliili jirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo haweeneyda ay toogteen ciidamada Haramcad. Wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in ay markii ciidamada ay tooganayeen ay hadal haysay hadalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo balamihii hore uu ula galay shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ayaa dhibaatooyin kala duwan kala kulma ciidamada Haramcadka iyo sidoo kale kuwa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, gaar ahaan kuwa kasoo horjeeda hana siyaasadeedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Tanina waxay u muuqanaysaa baqdinta xoogan ee markan shacabka Soomaaliyeed ka haysata ciidamada kala duwan, gaar ahaan kuwa ammaanka. Dhibaatooyinka mararka qaarkood ay shacabka u geysanayaan. Shacabka reer Muqdisho ayaa dhammaanba baqdin xoogan ka muujinaya xaaladaha adag ee marka qaarkood ay kala kulmayaan dowladda federaalka Soomaaliya. Lama oga wax walba sida ay isku bedeli karaan. Askarta ciidamada dowladuna waa kuwa inta badan tacdiyo fara badan ka geysta xaafado ka mid ah magaalada tani caasimada ah Muqdisho. Lama oga wax walba sida ay isku bedeli karaan, laakiin dalka oo ku jira xaalad kala guur ah ayaa shacabka baqdin xoogan ka muujinaya. Shacabka reer Muqdisho ayaa dilal qorsheysan, weeraro joogto ah iyo qaraxyo waxa inta badan ay kala kulmaan ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo wata Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Guud ahaan, daawadayaal, warkii aad ka daawanaysiin janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga intaa. Haddaba daawada, haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka wararkeena, leega iyo sheerka iyo commentiga noogu dadaala. Waad mahadsantihiin. Nabadgelyo.